tarbiyada saxda ah laba qaybood baan u dhigaynaa. qaybi waxa weeye daryeel, qaybta labaadna waxa weeye in ilmaha fitradiisa ilaahay ku abuuray loo ilaaliyo. qaybta daryeelka waxaan ka wadaa qofkaani baahiyaha wuxuu cuni lahaa, cuntadiisii, meesha seexan lahaa, daryeelkaas, caafimaadkiisii, hu iyo ho in loo qabo, hoygii loo qabo, waa daryeel. qaybta labaad waxa weeye barbaarintu waa fitrada ilaahay ku abuuray qofka in loo ilaaliyo. fitradu waa maxay? qofka isagoo islaam u dhashay waa in la ilaaliyo. qofkan isagoo dhammaan xirfadaha nolosha leh oo ku duugan yahay baa ilaahay abuuray waa in loo ilaaliyo. yacni tusaale nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis waxaynu ku sheegay wax ilmo kastoo dhasha wuxuu ku dhashaa cala fitra, laakiin waalidkiis ayaa soo dhex gala oo ka dhiga ama yahuudi ama majuusi ama wax kale ka dhiga, laakiin isagoo dhammaystiran buu dhashaa. marka su-aalahana markaan sii dhex galna ogaan doonaa, laakiin hadda tacriifkii u dammeeyey oo cilmiga barbaarinta khubarada ku takhasustay ay tacriifinaya waxay leeyihiin waalidka shaqada ugu badan u taalo oo ilmo inuu barbaariyo inay tahay inuu fitradii ilaahay ku abuuray u ilaaliyo, ha noqoto iimaankiisii, ha noqoto qiyamka iyo akhlaaqda mabaadidu aaminsan yahay, ha noqoto qofkan xirfadii nolosha u baahnaa uu la qabsan lahaa oo adu haddaadan ka burburin uu noloshan challengigaas uu wajahi lahaa, nooci doonto ha noqoto. marka fitra waa in tarbiyadu waa ilmaha in loo ilaaliyo fitradiisa.